halkan waxaan ku duubayaa sir halisa oo ka dhacday dalka Somaliland waqtigii gudagalkii SNM ay soo gashay magaalada Hargeysa taasoo runtii reebtay riiq iyo taariikh xun oo adag ragga qaar ay galeen ama ay sameeyeen waxaa jira nin la oran jiray macalinka ahaan jiray magaalada Hargeysa waqtigii dawladdiisa Siyaad Barre oo aan ahaa magaalada Hargeysa aan ku ahaa oo samaroon ahaa oo la oran jiray Xasan Xaaji Cali Bidaar Bulbul waxa la oran jiray Xasan Aboole wuxuu ka baxay dugsiga sare farsamada gacanta Hargeysa 1973 wuxuu ahaa ciyaartooygii kubadda cagta ugu wanaagsanaa number 11 qaadan jiray Apollo 11 baa la oran jiray Hargeysa uu ciyaari jiray waxa loo diray dabeetana Jarmalka wuxuu ku soo bartay cilmiga engineering dib buu u soo noqday Hargeysa ku soo noqday wuxuu madax ka noqday macallin ka noqday dugsigii sare farsamada gacanta ee uu ka baxay Hargeysa markii dambena wuxuu ka noqday maamule kadibna wuxuu noqday kormeere waxbarasho inspector of schools isla magaalada Hargeysa ninkaasi wuxuu guursaday gabadh aanu ilmaadeernahay oo bahguba oo imika Yurub joogta ayuu guursaday Hargeysa gudaheeda ku guursaday fooqa baxsan ee magaalada Hargeysa ku yaala geeddeeda dabadiisa uu ka dhisay ninkaasaa dhisay Xasan Aboole dhisay waa nin injineer ah oo wasaaradda waxbarashada u shaqeeya dawladda Soomaaliya idee badan anshax badan xulka kubadaha iyo ciyaartooyga kubadahana aad ugu xidhan magaalada Hargeysana la xididay qiimo badan ku koray magac iyo taariikhna u soo jeeday waligii aan dambi ka gelin islaamana aan waxba u geysan nasiib daro asana markii ay soo gashay dadku waxay u qaxeen biyashinaha iyo inta u dhaxaysay ilaa Geedeeble anaya eeriyooyinka gabooba lube meelahaas loo qaxay wadanagu halka degan biyashinaha dabadiisa shishe oo uu nala degan yahay ayaa magaaladan la qabtay magaalada qabteen marka raashin ku kaago magaalada gurigaaga bad ku noqonaysaa yar ka soo qaadanaysa tan isagoo yar ka soo qaatay gurigiisii saddex nin oo ilmaadeerihiin oo masaakiin oo magaalada Hargeysa meherada ku lahaa oo iyaguna samaroona oo ay ilmaadeerihiin ay wada socdaan baa waxa lagu qabsaday control laga sameeyay biyashinaha oo SNM ka samaysatay oo madax ka yahay nin la yiraahdo Xuseen Farjar Abdullah Bokora oo ciidanka qaybta afraad ee SNM ka tirsan ninka Farjar wuxuu ka ahaa halka magaranaysa askari ka uga taagan SNM control baa laga dhigay halka biyashinaha waxa la shaqeynayay oo la joogay controlka nin reer gadiida oo Cali Xaraare la yiraahdo Cali Xaraare waa nin aana reer gadiid waa reer kuul gadiid waa reer faarax kuul waa reer xaaji libaaxwi labadooda saawada joogay kadibna ninka iyo saddexdii nin ee la socday Xasan Aboole iyo saddexdii nin ee la socday Samaroon waa la controlkaas lagu qabsaday waa lagu xilay wan ugu tagnay anagu maadaama aanu ninka xidid ahayn waan ku soo booqanay waa soo eegnay waa weydiinay maxaa jira baan ku niri wuxuu nagu yiri wax alla wax la haysto garan mayno nimankii waanu wareysanay war maxaa ku haystaan waxba arintoodu waa sahlan tahay waka akhirkii waxaan ugu raadeen Muuse Bixi Xasan Aboole nagu yiri Muuse Bixi sugaya Muuse Bixi soo maraya Muuse Bixi halala sugo sidooyinteedu waxa ku xidhnayd Muuse Bixi sida Cali Xaraaro iyo ay Farjar ba sheegeen Farjar waa nin aad u dheer oo farta go'an oo Abdullah Bokor iyo Xuseen Bokor Abdullah Bokor iyo Axmed Cabdalle labada waa mid I think in waliba Xuseen Bokor ahaa ninkaasi labada nin nimanka way ku dhigeen wax alla waxay u haystaan lama garanayo Muuse la sugay Muuse markuu soo maray habeennimadii way u sheegeen waxay ku dhahdeen soo gaariyar wato Geedeeble ka yimi ayuu soo maray Muuse Bixi anigu subaxdii waxaan islaan waa la soo deynaya mar hadduu Muuse Bixi way Muuse uu soo dhaafay xagga Geedeeble xigtaan degnayn
waxaan isla caruurta la soo deynay showsaqdii dhexe habeennimadii markuu muus tigayba amar buu bixiyo nimankii waa lala baxay dabata waxa lagu laayay geed deeble iyo magaranaysa biyashiina dhexdooda 4 nin waa arrin mucjisa ah waa arrin la yaab leh waa arrin tiiraayo badan nagu reebtay gaar ahaan qoladeeda bahgo waayo ninkii deen inanta naga qabay weliba dee magaranaysa aan weligii wax godoba Hargeysa ka gelinay caanka ahaydee taariikhdan kula wixii lagu dilay baanu garan weynay way isweydiinaa ilaa imika wanu isweydiinaa arrintan markaa waxa weeyaan afkay noo buuxisay waa soo tufnay waa qaadan kari weyne waa laqi kari laanay ninkii caynkaas